السلام عليكم أصحاب دقوش الجعل. يا استعمال SWOT analysis محل له استعمالها. SWOT analysis بدنا وحا استعمال شركتها وحين استعمالان سوق إنay ka muuqdaan ee u noqdaan majaalkaasi ay ku jiraan shirkadaha ugu fiican sida alaabtooda ama adeegooda ay u gadaan faa'iidana kaga sameeyaan. maxaa yeelay SWOT analysis waxaa lagu ogaadaa shirkadda ama shakhsiyaadka shirkadda ka tirsan waxay awood u leeyihiin oo sameyntiisa ay ku fiican yihiin, dhinacyada ay daciif ka yihiin, fursadaha ay haystaan ama ay heli karaan, iyo waxa kale oo lagu aqoonsan karaa caqabooyinka haysta ama laga yaabo inay soo waajihaan. qof walba ganacsi lehna oo isticmaali karaa, laakiin tan ugu muhiimsan oo aan rabno muuqaalkan inaan ugu hadalno waa in aad naftaada ku dabaqdid. waxaad isweydiisaa maxaad awood u leedahay oo aad sameyntiisa ku fiican tahay, xagee kula tahay inaad daciif ka tahay oo u baahan inaad ka shaqeysid, fursadaha haysatid ama laga yaabo inaad heshid maxay yihiin, dhibaatada ku haysata ama laga yaabo inay ku soo wajahdo maxay noqon kartaa, maxaa xal u noqon kara oo aad uga hortagi kartaa. codsi fadlan warqad iyo qalin soo qaado oo isku day inaad 4 su'aal ka jawaabtid. maxaa yeelay san hor u sheegno waxaad awood u lahaan doontaa inaad ogaatid waxaad ku fiican tahay iyo fursadaha haysatid. waxa kale oo aqoonsan doontaa dhanka daciif ka tahay iyo dhibaatooyinka ku haysta ama laga yaabo inay ku soo wajahaan. taasna waxay ka caawinaysaa nooca qofka tahay inaad ogaatid iyo wax walba sameynaysid sida ugu wanaagsan inaad u sameysid dadka kalena aad ugu doonaatid. haddaad ka caajisto warqad iyo qalin aad soo qaadatid waxaan ku diyaariyay PDF file ay ku qoran yihiin 4 su'aal waxaana ka heli kartaa muuqaalkan hoostiisa oo hadda ay daawanaysid YouTube-ka si kal ilaa in waxaan kugu rajeynaa mustaqbal wacan. waxaan ku dadaalaa oo aan jeclahay inaan kugu soo bandhigo meeshan fikradaha, talooyinka, farsamooyinka iyo tallaabooyinka aan ka faa'iiday buugaagtan aqriyay, muuqaaladan daawaday iyo koorsooyinka aan qaatay si fudud oo aadina kugu caawin karta noloshaada inaad ku dabaqdid. haddaad rabtid inaad ka faa'iidaysatid ha hilmaamin inaad subscribe gareysid, like-na saartid muuqaalkan si uu gaar dad badan oo iyagana igu faa'iidaan. waa walaalkiin saaxiibkiin Shuto idin leh daawasho faa'iido leh. qof noocee ah ayaa tahay? sababta ugu muhiimsan oo aan u sameeyay personal SWOT analysis-ka waa inaan korinaa wax loo yaqaan self awareness oo ah wacyiga nafta. waxaa dhacda mar walba aan barto wax cusub ama aan la sheekaysto dadka inay jiraan waxyaalo badan aan hore fikrad ugu haysanin. waxaan xaggayga soo baxa waxaan aqaan inay aad ugu yar yihiin waxaan aqoon. waxaan u malaynaa nafteena inaan naqaano, laakiin run ahaantii haddaad u fiirsatid ma naqaan. meeqa jeeran go'aansanaa inaan sameeyno waxaan ognahay nafteena inay dan ugu jirto oo aanan sameynin, iyo meeqa jeeran go'aansanaa inaan joojino waxaan ognahay inuu dhibaato noo geysan kara oo aanan joojin. sidaa darteeda waxaan u baahannahay inaan kordhino wacyiga nafteena. waxaana jira 5 shay oo nagu caawin kara inaan noqono self aware. xaaladaha dhowrka markuu ugu soo noqdo inaad fahantid. waxaa jira wax adigoo sida ugu wanaagsan u sameynayo aadan dareemaynin dhibaato, laakiin dad kale ay u arkaan inuu yahay shay cajiib ah ha kuu sheegan ama aad iska fahantid aday. Steve Harvey oo majaajiliiste dadka ka qosliya inuu sheego wax lagu qoslo dhib kuma ahan oo hibo u leeyahay. dadkana way jecel yihiin in hadalkiisa dhageystaan, waliba waxay diyaar u yihiin lacag inay ku baxshaan. maxaa Steve Harvey ka doonaynaa? waxaa jirta gabar aan aqaan oo Soomaali ah waxay jeceshahay ay ku raaxaysataa cunto inay kariso. ma ahan kaliya cuntada karinteeda, balse waxay u samaysaa presentation aad u qurxan oo waxay u soo bandhigtaa si cajiib ah. cuntada ay samayso waxay ku soo share gareyn jirtay social media. qof walba oo yaqaana ama arko waxay sameynayso wuxuu iska dareemaa run ahaantii waxaan inay jecel u sameynayso. hamigeedu wuxuu ahaa inay furto maqaayad, waxayna ku bilaawday dadka inay barto cunto karinta. maanta waxay Muqdisho ku leedahay maqaayad loo yaqaano Joe's Kitchen. guriga cunto iska karkarsan jiray ana wallahi ku faanin cuntada waa jeclahay. yani hadda wixina ma ogtahay hadday waxaan passion ka yihiin way ka duwan tahay waxyaabaha. yani aad jeclahay inaan mar uun arko maqaayad oo ifran glass oo cunto karin dadka baraa ku bilaaway dan waa fikiray maadaama xoogaa iska hele inaan maaragtay maqaayad ka dhabeeyo. ilaahay waa ii rumeeyey, waa furtay dee magaca Joe's Kitchen magac caadi leh hal iska dhiga maahane. waxay kasoo bilaabatay qof like cuntadii passion u leh oo guri ku kari jirtay. markaan maaragtay oo waxaa jeceshahay ama xirfadaada ee saa sheegtay shaqada tahay inka markasta makaniyad jabaysid. wax markuu passion ka yahay inta wax meel ka fiiriso hor laga sameeyo wax ka inaad fikrad kale ku darto wax la aabadasha muhiim ah. alxamdulillah taasna waa ka dhaweeyay cuntooyin badan oo aniga qaasi oo magaalada laga helnaa ay jiraan. maqaayad magaalada ka furan yihiin, laakiin hadda saa dareemayo magaalada xooga cunto hadii la dhaho waa ka duwanahay. alxamdulillah wa shukr. maqaayad way dhib badan tahay, laakiin waxa ku sabr xitaa waxa inay xirfadeedii passion-kayga yihiin. wixii markay passion-kaaga yihiin way ka duwan tahay. waxayna dhiirigelin u tahay qof walba rabo wuxuu jecel yahay inuu bedelo ganacsi isla markiina kaga sameeyo dakhli. shayga labaad
waa inaad dareenkaaga fahantid. Ma ku soo martay hadda ka hor inuu qof ka qaylshay ama ka xanaaqo wax yar aad samaysay oo aadan u arkin adiga wax weyn inuu yahay, ama adigaba ma dhacday inaad ka xanaaqdid wax aadan caadi ahaantii ka xanaaqin. sidaad u kordhisid wacyiga naftaada waxaa muhiim ah inaad fahantid oo aad qiimaysid dareenkaaga. maxaa kaa farxiya, maxaa kaa xanaajiya, maxaa niyadda ku dejiya, maxaa cabsi ku geliya. dareenkaaga inaad fahantid wuxuu kaa caawinaa dadka kale dareenkooda inaad fahantid, kaagana si qurxoon oo sax ah inaad u cabirtid. shayga kale oo kaa caawin kara inaad wacigaaga kordhisid waa inaad dadka weydiisid. mararka qaar waxaa jira wax si qalad aad u samaynaysid oo aadan ka warhaynin, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad dadka weydiisid, khaas ahaan kuwa ku dhow oo jecel wax kaa qaldan inay kula saxaan. waana sababta loo dhahay almu'minu mir'aatu akhiih, mu'minka waa miraayada walaalkii. dadka kuwa kugu dhow weydii oo isku day inaad fahantid oo aad saxdid wax kaa qaldan. shayga afraad oo nagu caawin kara inaan kordhin wacyigeena waa inaan ku mashquulno nafteena. intaad ku mashquulsan tahay dadka kale oo aad ka hadlaysid waxaad waqti u weynaysaa naftaada. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun, naftiinana miyaadan arkaynin. waa hubaal haddaad naftaada isku mashquulisid oo aad ka shaqaysid wax kaa qaldan inaad saxdid waxaad waqti u weynaysaa inaad qof kale kaga hadashid ama aad ku mashquushid. shayga shanaadna waa inaad awooddaada fahantid. ilaahay qof walba oo naga mid ah wuxuu u sameeyey awood iyo dabeecad iyo mawhibad gaar ah oo ugu duwan yahay dadka kale. hawshaada koowaad ka dhig inaad fahantid awooddaada iyo waxa dad kale ugu duwan tahay. waxaadna weydiisaa naftaada diyaar muu tahay inaad qaadid tallaabo weyn oo aad waajahdid dhibaatooyinka laga yaabo inay ku qabsadaan sidaad u gaartid mustaqbalka wacan oo aad rajeynaysid. wuxuu leeyahay Napoleon Hill oo aan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga, strength and growth come only through continuous effort and struggle. xoogga iyo korinka waxay ku yimaadaan halgan iyo dadaal joogto ah. waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga oo aad ila qaadatay. haddaad u aragtid muuqaalkaani inuu u qalmo like saar, waxaan la wadaagtaa asxaabtaada. waa walaalkiin iyo saaxiibkiin Shuto idin leh mustaqbal wacan.